dhalinyarada amniga iyo nabadgelyada ciidamada sugaya walaalayaal aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee aad noo soo dhaweydeen anigu horta xaqiiqada runta markaan idiin sheego la jiida maanta war ma ibaan waxaan moodayay tuulo yar laakiin waxaan ogaaday hadda caasimadda afkeed inay tahay baan ogaaday warka waxaan idinayno aad iyo aad baad u mahadsantihiin boqolkiiba boqol waan idinka malaynaynaa awalna waa ku maqleen la jiida waxa liya waa dad ficil badan oo maaragtay aad waxa liya aad u qadariyo dadka aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa wabilaahi tawfiiq sharafta leh iyo maamulka suuban ee maanta soo booqday ku la jiiday waxaan leeyahay walaalayaal hambaliyii salaan wanaagsan baan idinka gudoomay waxaan u malaynayaa la jiiday inay noqoto meeshii lagu baraare ee lagu kobcay ee lagu kordho inay noqoto madaxda Soomaaliyeed ay ka amar qaadan lahaayeen inay noqoto hooyadii Soomaaliyeed u malaynayaa marka walaalayaal soo dhawaadaan ilaahay iyo culimo diinka iyo islaamka noo yimid oo nagu soo kordhay oo meel walba nooga yimid waa soo dhaweynaynaa hambaliyo wanaagsan baan ku soo dhaweynaynaa si sharaf leh baan u soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan farxad leh baraaro leh ee sharaf leh baan ku soo dhaweynayaa yaa dhammaan odayaasha sharafta leh oo noo yimid baan salaamahayaa waftiga sharafta leh oo noo yimid haddaanu nahay deegaanka la jiide haddaanu nahay rag iyo dumar waa salaamaynaa timada dhan waa salaamaynaa salaanka bacdi walaalayahay waan soo dhaweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa noo soo dhawaada noo imaada waa idin rabnay walaal aan jecelnahay tihiin marka waxaan iyo diimada iyo inta siyaasiyiinta oo madaxda oo ilmaadeertaya oo Saleeman Cabdalla leh oo sura ka kooban oo Musafaar ka kooban oo meel dheer nooga timid baan ka salaamaynaa faro gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa salaam wanaagsan baan ku soo dhaweynaynaa mahad balaaran u jeedinayaa dadka heer la jiiday soo dhaweynta diiran oo qareexada iyo dawladnimada ka muuqato waa in lagu soo dhaweeyeen anagoo ah wafti balaaran oo ka yimid deegaanada ay degan tahay beeshu siyaasiyiin iyo dhaqan waxa weeye walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad waa idinkaga mahad celinaynaa sida diiran waa noo soo dhaweyseen marka labaad anagu waxaan u soconnay waxaan ka nimid deegaanadii baan ka nimid waxaan u soconnay wada tashi qabiilo haddaanu wada soconnay walaalayaal waxaanu dhignay meel ku habboon ayaanu dhignay inaad nala qaataanna waa rabnaa ma nala qaateen reer la jiiday inta kadib maantay waxaan meesha isugu nimi xafladatan anagu hadal badan xafladda way noo damayn doontaa insha Allah iyo warku waan mahad celinayno dadkii shalay nagu soo dhaweeyay magaalada yadii Dusmaalay ilaa xalan nahayay na sharfay na dhergiyay gogosha fiican iyo xiriirta noo dhigay iyo kuwa maanta aan u fadhino la jiidle dhamaantiin waxaan idin leeyahay waxaad naga mudantiin sharaf wanaag hambaliyo iyo dhiirigelin waanu maleynaynay waanu ku soconay way ahayd shaki nagagama jirin ay dadka iyagu yihiin dad sharaf leh ku fiican soo dhaweynta ku fiican martigelinta ku fiican dhaqanka iyo asluubta guud ahaan magaca kan direed gaar ahaanna beelaha Cabdalle ee ku nool deegaanada tan maraynay ka tagi mayno guri kamida iyo tuulo kamida meelaha ay dadkan Cabdalle ku nool yihiin ee meelaha hadda aanu safarka ugu soo baxnay ilaa aanu ka dhamayno ay yiraahdaan raalli baan nahay waxa la isiiyay hadalka inta badan waxaan rabaa inaan qancino dadka qabiilada aan ka dhalanay aan u nimi maadaama anigu aan ahay ninka ugu dambeeya dadkan safarka ee magaalada Qarrood baan baabuur kaga yimid Qardho ilaa Dhuusamaree baabuur ka yahay waxaan u socday dadkaas inaan booqano inaanu haddii Ilaahay marro meelaha ay joogaan baahiyahooda fiirino dhaqankooda fiirino deegaankooda fiirino reerka anigu aan ka socdaa wareerkii dadkan magacyada sheegta ganacsiga ay ku tilmaami jireen haddii deegaan aan helo inaan deegaanada dhaqaale keeno deegaan keeno waxbarashada iyo caafimaadka wax ka qabano qorshaha iyagu sidaas u ahaa waxa intaa noo weheliya waqtiga kan hadda la joogo kursigii beelaha kan ay ku lahaayeen
dowladda federaalka Soomaaliya doorashadiisii waxbaanu meel soo dhignay xogogaal bawtiina wax noma kala qarsoona dad badan oo dadka inaga kamid oo ehelkeena oo baadi guurina way jiraan waxaan rabnaa inaad kala garataan baadi guurka iyo dadka xogta dhabta haya waxaan rabnaa inaan hore u socono maanta waxaan leenahay shanta kursi ee Soomaaliya ugu sareysa kan afraad baan leenahay waana saa ogaataan walaalaheena kale waxay doonayaan aqalka hoose xildhibaan kamid ah iyay doonayaan dadka qaybtiis annaguna waxaan doonaynaa madaxweynaha Soomaaliya inaan u tartano cid noo diidaysa iyo inaga istaagaysa ma jirto waxaan rabnaa oo idinka codsanaynaa maadaama dadka shacabka oo dadkan dhaqanka iyo siyaasiyiinta ay matalayeen atiin cod hadda kuma leedin cod bixintu waqtigeeda ay gaaraysaa laakiin inaad taageero u muujisaan odayaasha dhaqanka ee ku hawlan kursiga meeshii ku haboonadeen dhigaan waa intaas codsi weeye meel kastoo aad joogtaan oo idinka codsanaynaa haddaydina idinku dhaqanka u hiilin wax badan baan soo hadda 9 bilood baan hawshatan ku jiray magacyo badan baan naloo bixiyay dulqaadkeedaan leenahay ka hadli mayno cid u jawaabi mayno laakiin waxaan idinka codsanaynaa maadaama shacabka atiin idinka dhalinyarada dadka wax qorqora kulli inaad jawaab bixisaan idinku anagu wax xishoonayna odayaal baana inta kadib waxaan u mahad celinayaa dadka shacabka ee ilaa duhurkii maanta halka noo faysanaa na sugaayay waan soo soconay degmadeena xeraalaan soo maray oo hadda ku daanay oo waa degmadii tuulooyinkan ay ka tirsanaayeen dadkeenni waxgaradka iyo odayaasheenni iyo guddoomiyada degmada iyo saraakiisheenina ay joogeen intaasaan idinkaga soo daana naga raali ahaada mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambaliyo